Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabteena. Waa walaashiin Safiya Xubi oo soo laabatay muuqaal cusub idin wado. Ugu horeyn channelka hadaad ku cusub tahay subscribe noo sar. Haddaad hore noola joogtayna soo dhawow mar kale waa mahadsan tahay. Maanta qisaan idin wadnaa sida hore nooga barateenbo. Qisadan waxay la soo wadaagtay gabadhani waxay leedahay waxaan ahaa gabar yar ku nool magaalo oo tuulo yar. Marka aabaheed bay la nooleed gabadhii, hooyadeed ayadoo yariis bay dhimatay oo si fiican maysan u arkin ma sheegi karin, laakiin aabaheed la nooleed gabadhu. Aabaheed maadaama ayada ay la nooleed aabaheed markay xoogaa yar ay soo qaangaartay meeshii buu ku geeriyooday asna Allah u naxariisto. Marka gabadhi waxay tiri hooyadeedii marka hore ayadoo dhimataybo haddana aabaheygii buu dhintay. Aabaheygii 2 caruur uu ka tagay aan hooyadeeda dhalin oo asi xaas kale eedadeeda uu guriga marka yaraa uu soo guursaday. Marka gabadhiina marka 2 cunug markay dhashay way ka tagtay, marka way isfahmi waayeen oo uu furay 2diis cunug uu ka ceshtay. 2 cunug anaa hooyo u ahaa, aabbahan oo soo adeega jir guriga markuu noo imaado wax baan karsan jirnay. Aabihii wuu dhintay marka 2dii cunug yani meeshii cidlo ayaan ka dareennay iyo walwal. Marka eedadeedii bay noo imaaday. Eedadeedii waxay jiray oo eedadii hooyada oo 2 cunug dhashay ma ahan eedada aabaha la dhalatay waa eedada ay u timid. Waxay tiri marka 2dan cunug iska daa halkan ka tag oo tuulo waaye wax kasta aad samaysid shaqo kasta aad qabatid shaqo wax kaaga soo baxaya ma ahan lacagan ku siinaya magaalada Muqdisho aad meesha shaqo fiican ka helaysaa meeshaas ka shaqaysa bay tiri. Waan dhahay warkeeda maanan diidin. Eedadii meeshii aan ka soo baxay magaalada Muqdisho markaan imaaday waxaan bilaabay shaqo. Ani marka ugu horreysay aan imaanayo naag maxaan ku iraadaa oo aabahey aqoon dheer ka dhaxaysa baan meel isku aragnay. Meeshaan isku aragnay kadib naagtii waxay geysay guri oo shaqo looga baahnaaba markaas gurigii aan joogo aan shaqeynayo marka aan wixii aan helay qaar eedadeedii iyo ciyaalkii aan u tuuray qaarna aan haystay baan waxaan go'aan ku qaatay 2 cunug aabaheyga u dhalanay inaan ani magaalada Muqdisho aan keeno maadaama ayada eedadeedii xataa caruur fara badan ay haysato. Marka waxay isiri hadhiban 2 cunug ka soo wad. 2 cunug waan ka soo waday. Shaqadii baan ka tagay waxaan sii galay shaqo kale ka sii weyn oo meel weyn baan ka sii shaqeeyay bilooway bay tiri. Kadib gurigan kireysanay aniga iyo walaalaheyga aaba iska yaraaday meeshii aan ku nooleen maalinkii waa bixi jiray oo soo shaqeyn jiray oo iman jiray. Kadib saysas u ahayd maalin maalmaha ka mid ah baa waxaan Facebook isku baranay wiilkii wuxuu joogay Jarmalka. Marka wiilkii markaan is baranay kadib xaaladaheygii buu isdhexgalnay xaaladihiisa buu ii sheegan jiray noo sheegan jiray marka saaxiib isku dhow zaid iskugu dhawaan noqonay bay tiri. Marka wiilkii saas aan saaxiib iskugu dhawaan noqonay wax walba aan igu soo kordhaan u sheegay wax marka wuxuu noo soo diri jiray aniga iyo walaalaheyga lacag oo walaalaheyga waxbarashadooda maxaan ku iraadaa aan ka dhiibo. Wuxuu yiraahday saas ay tahay aabo nooleen walaalaha wayna waxbarasho geysaa marka lacag uu soo diri jiray walaalaheyga waxbarashaan ku geeyay gurigeenina waan maxaan ku iraadaa waxna waa ka cuni jirnay saas ay tahay waa shaqeynsan jiray ani oo asi uma fadhinin. Marka saysas u ahayd xiriirkeen wuxuu socday asi wiilku wuxuu ahaa wiil aniga i jecel bay tiri anna waan jeclaa laakiin asaga markaan ogaaday aniga walaalkiisa inaan ani xiriir jacayl balan aan ka qaaday baan maxaan ku iraadaa isku naxay. Maxaa yeelay wiilkan saaxiib isku dhow aan ahayn laakiin jacayl dad isku sheegan kara maanan ahayn. Ani jacaylkiisa waan ka xishoon jiray asna ma aqaan inuu iga xishoon jiray in kale laakiin intuu horteeda imaaday xiriir jacayl muusan ii sheegin laakiin saaxiibtinimo caadi zaid iskugu dhawaan ahayn. Wax walba igu soo kordhay waan u sheegi jiray xitaa wiilka ani inaan ii jeclaaday ani balan aan ka qaadayna waan u sheegay. Marka wuxuu yiri maasha Allah ma xuma. Marka wiilkii markaan ogaaday waxaan ku ogaaday maalin maalmaha ka mid ah wuxuu wiilkii oo balanta aan ka qaaday uu yiri
arooskeena soo dhow maxaan ku irahdaa bahalkii walaalkayga baan ku barayaa buu yiri. Walaalkaaga ma aha hay way hay ibar ilaan family inaan isdhexgalno weeyaan markaan bay tiray marka walaalkii markuu ii soo diray oo halka walaal ila dhashtay waa inta kala gabdho uu yiri walaalkii waa wiilkani ani waaya waxaan sameeyaan garan waaye marka waxaan isiiray wiilkan waa wiilka saaxiibkay igu dhow aha wiilkan waxay tiri marka wiilkan waa wiil aan aqaano oo aan aqoon u leeyahay walaalkaaga miyaha oo isku barateen sana isku baranay sana nahay wiilkii marka wuxuu yiri walaalkayga xiriir ma idinka dhaxeeyo mise aniga been baad ii sheegaysaa may walaalkaaga wax xiriir ma naga dhaxin laakiin saaxiib isku dhow baan ahaan bay tiri. wiilkii marka wuu shakiyay oo maxaan ku raada balanta ay ka qaaday wuxuu yiri marka aniga waan ku guursanayaa laakiin aniga hadda waxaan u baahanahay inaan shaqeysto aniga abaar aan sii shaqeystaan u baahanahay guurka dib ma noo dhigi kartaa adigoo xumaan ii arkin marka waxay tiri dib ma lahan marka horeba adiga ay tiri aan isguursano oo ila imaaday haddana dib ma lahan marka waxay tiri waayahay waxba kama qabay. wiilkii marka walaalkiisa u tagay aan soo ii sheegay oo wiilka kale aan saaxiibkayga ahaa uu tagay gabadhan ma taqaanaa waa aqaana walaalo ma adiga adhayso walay doono ma aha waayahay laakiin way ku taqaanaa iyada waa saxantahay buu yiri laakiin saaxiibadeeda waa gabadhaasi haddana dumaashadeeda ay noqoto waxba kama qabay buu yiri oo walaalkii uu dhaariyay wax kasta uu weydiiyay oo waxba uma sheegin asaga.